meeshaan hadda aan joogo waa xaafadda Karyoko. Xaafadda Karyoko ayaa waxaa joogaan Soomaali badan oo ka ganacsadaan oo ku qabaan ganacsi kala duwan. tan iyo waqtigii hadda la soo dhaafay oo dadka waddankan ku nool Tanzania ay codkooda ka dhiibteen meelo kala duwan. cabsi baa galeen dadka badi oo ka ganacsada magaaladan Dar es Salaam. dukaamada qaarkood waa xiran yihiin. dukaankan hadda arkaysiin waa dukaan marka taayirada lagu gado iyo waxyaalo kale oo gawaarida lagu isticmaalo laakiin weli wuu xiran yahay oo albaabada loo furan. badi dadka waxay ka baqayaan mar alla marka natiijada lagu dhawaaqo inay dhibaato ka dhacdo oo marka dukaamadooda iyo ganacsigooda la bilaabaysto. taas baa sabab u ah in magaaladan meelo qaarkood ay weli dukaamada xiran yihiin inkastoo hadda maanta xaaladda nolosha ay si tartiib u soo laabanaysaa oo dukaamada la furayo qaarkood waa baskaas dug soo dhacay oo ku sugan xaafadda Karyoko magaalada Dar es Salaam waddanka Tanzania.